أنت عشركو شيخ الصعود بليس ياند الله صوصارن هذيك له وضوب مياه وحلقة يا وضوب تانك عشركو هنا نجخ الخلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على كل عبد مصطفى. عشر كانوا عشر كي تضوي طبانات كساب سنة سيردي نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولي وحان كل حجرني نبينا ولي لو وحيونين أو جوجو غار حراء مركا يا ما إلهي لا لعد الله ضخفكم ميل أو كحارة waxyaabaha natiijooyinka dhalan kara ama faa'iidooyinka dhalan kara maxaa kamid ah dhowr ayaan soo sheegnay ugu dambeysay aan ka hadlayna waxay ahayd inay ka dhalan karto maxabada ilaahay jaceylka ilaahay waan ka hadalnay arintaas qaarna dood geliyeen ay yiraahdeen ilaahay yaani aayadkan oo quraanka ilaahay ku sheegay maxabadiisa inay tahay oo kaliya in awaamirtiisa loo hoggaansamo wuxuu naga reebay laga tago laakiin yaani jaceyl qalbi looma qaadi karo waxaan soo sharaxnay marka casharadii dambe إن دين أهان أدلة كتمت وانسوا قادنا عقل أهان يعني إنه معقول تهي وان كهذا قضبضي يعني عدينيسي إن خفك وجاري كرو مرحلة وربي سبحانه وتعالى وجعله تاسنا إتحي فرحدي وجوا ناكسنيد إف إي آخر أبو مركا أنا تاسو شرحني طبعا خفوا ما توحوا حيسينا يا وروا إنه أجادو حد بهذا السداس تهي ogaanaya jaceylka ilaahay sida lagu gaari karaa su'aashaas waxay ugu bilaabatay markii casharadan aan bilaabay oo jawaab waafi aan kama aanan bixinin waayo jawaabteeda jawaab kooban ma noqon karto dunidan sideedaba wax walba oo loo baahan yahay waa in halgan loo mara qofka duro inuu doctor noqdo waa inuu dugsi sare dhameeyo inuu jaamacad dhameeyo inuu yaani halgaas leer umara qofka duro ganacsata inuu noqdo inuu struggle u gala inuu mar khasaara mar liibana wax walba oo qofka u baahan yahay yaani yiddiilam isaga timaado waa loo dadaala waa loo dhididaa waa loo halgama tan ugu sareysa qofka markuu u baahan yahay ama culimada psychology ugu bixin ageebiya yaani jaceylka ilaahay marka wax sahal lagu gaari karo ma yahay haduu ilaahay qofka u fududeeyo naam sahal uu ku gaari kara laakiin يعني دي لما يساق إيمان كرتا مسوح وبانتها ودقاقد وبانتها هذا ومرك خفك مركو قوان صدي إنو ودقاقه إنو قارو ربك سبحانه وتعالى إنو قلبي سكحيرو واللابتنا وكجع لاذو دقاقاس أما السفر كاس وحوك بلاوانا يا قلبك إما هاتي عقلك وانكسو هذا لني إنو أقولاذي خفك إنو ربك سبحانه وتعالى وجعلان كرو لكن تي waxaa soo hartay marka yaani xarakadii loo baahnaa xarakada aqliga kaliya ma aha laakiin xarakadaas waxay noqonaysaa tii qalbiga filosofkii Hollandeeska Baruch Spinoza ay wuxuu oran jiray qalbiga wuxuu leeyahay aqoon iyo cadeymo oo badanaa aqliga uusan gaari karin oo aqliga uusan yaani ogaan karin marka qalbigaas ee aqoonta iyo cadeymaha xambaarsan ayaa loo baahan yahay inuu u safro Ilaahay subhanahu wa ta'ala هذا وسفر كاس قلبي مركو قادنا ما ودد مسك فرنتهاي أو سهل موك سفر كرا مس وحاجر وحيابه أو كهر إيمان كرتو خفكي سفر كي دب وقدقي كرتو علماء ذا مركا تجربة الصامري مقامات كاس جاري وحير هذان إلا تضوب بور أيو كهر تاجن لو بهني هاي إن أد ما ركت بورها سعد لافت أتك جذبته إقرأ لي هذا كان حوار إلى تواصل بور إنك جذبت أي لو باهي سي مرحلة ساو قارت بورت كواد حيرادان وبورت علمي واتن عن هذا كجرنا قفك إنه ما يلول بأسفريست وأنا أقول لها تماشي كاجرته إي وددي لو قادن لها يعني ودروس السيرة سان أبلاونين دنك حوجن دنك صارنا علوم تاس قلوبتك وسابسن علوم أو علم السلوك أم علم التصوف وعلومته أجارك لو جار مرحلة داس أو النبي عليه السلام مركو جبريل ويديري أخبرني عن الإحسان وحكير عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي إن دعاء بود السادق وأركاي وكلا هدي آذن أركين ندرن سنة وإلهي إنك أرك مرحلة مقام المشاهدة إن تجارت ذا لو بهية سيكو جاري كرتا مركا
safarka marka taas waa cilmigi aqoon qofka u leeyahay yani wadadu qaadan lahaa iyo aqoon in uu leeyahay waxaa ka hortaagan taa marka wadadaas cilmiga anagoo haysana ay waxaa naga hor imaanaysa 6 buuro oo loo baahan markaas inaan jirno buurta koowaad maxay tahay buurta koowaad waxay tahay caqabatu dhunuub yani buurtii dhunuubta qof walbo bini aadam markuu qaan gaaray yani ilaahay qadartiisa waxaa kamid ah inaan ka abuuranahay dhulkan oo ciidan ah oo hawadii iyo nafsadii iyo shaydaankii wixii qofka bini aadamka la socdo qofka asagoo taahir oo nadiif naqa ayuu dhasha laakiin kuwii ilaahay u gargaara mooyaane inta kale badana bini aadam ayaa loo yahay yani khalad waa lagu dhacaa dhunuubtaas marka waxay keenaysaa inay qalbiga ka xijaabto la kulankii ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo boqor caadi adduunyada jooga markaad u safraysid aad u socotid aad jeceshahay inaad la kulantid dhar wasaq ah oo nadiif ahayn miyaad u labisan mise dharkaas horta waad nadiifinaysaa dhar nadiif aad xiranaysaa qasab waxaa leeyahay dhar nadiif ayaanu xiranaa waa nin boqoraan la kulmaya haddaba ilaahi subxaana wa tacaala sawirkeena dibadda ma eego iyo dharkaan dhagorta kala bisannahay laakiin ilahi wuxuu eegaa quluubteena waxaan kala bisannahay quluubteena sidee tahay quluubteena nadiif miya laakiin quluubta hadday wasaqaysan tahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay markuu ahlu naarta ka sheekeynaya suurat almutafifiin kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun quluubtoodii waxaa daboolay oo mirir ka dhigay yacni qalbigoodii waxaa dabool ku noqday oo daboolay waxay kasbanayeen oo dunuubta ay kasbadeen ah maxaa ku xiga marka kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun sidaa daraaddeed marka iyaga kuwaas rabbigooda xaggiisa way ka xijaaban yihiin qalbigii mar hadduu miriray ee daboolmay adduunyo iyo aakhirabo qalbigaas rabbi wuu ka xijaaban yahay qalbigaas wuu ka xijaaban yahay marka ilaahay yani marka taas aayadaas waxay ku cadaynaysaa qalbi miriray ee daboolmay ee dunuubtii dabooshay ee wasaqaysay inaysan suurtagal ahayn qalbigaas ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka dhex muuqdo qalbigaas jaceylka ilahay inuu galo nabigeena calayhi salaam wuxuu khayru khalqillaah murabbiga ugu weyn tarbiyada laga qaatana waa isagii calayhi salaatu wassalaam oo ilaahay noo soo diray inuuna taskiyeeyo ruuxdeena dhiso xadiiskii ibn maajah iyo tirmidi iyo nasaa-i soo wariyeen abu hurayra laga soo wariyey nabigeena calayhi salaam wuxuu leeyahay ina almu'mina idaa adnaba danban qofka mu'minka hadduu dembi ku dhaco kaanat nuktatan sawdaa fi qalbih dhibic madow ayaa qalbigiisa gaaraysa dembigu markaa ku dhacay haba yaraada dhibic madow ayaa qalbigiisa gaaraysa fa in taaba wanazaca wastakfar saqala minha hadduu ilaahay u toobad keeno ee dembigaasna ka dhex baxo oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto qalbigaas wuu ka nadiifiyay dhibicdii madoobeed wa in zaada hadduu dembigii dembi kale kusii darsadana zaadat way sii zaa'idaa dunuubtii yani madowgii ayaa sii zaa'ida xataa yugallafa biha qalbu ilaa qalbigiisa loogu daboolo madowgaas fadhalika kaasna wayaan arraan raankii alladii dakara allahu fi kitaabih kaasoo ilaahay ku sheegay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun aayadaas ayuu akhriyay marka nabigeena calayhi salaam aayaddaas micnaheeda xaqiiqadeeda isaga ayaa noo fasiray oo ah qalbiga waxa daboolay ma ahayn gaalnimo ma ahayn yani kirishtaannimo ma ahayn wax kale laakiin qalbiga waxa dabool maxay yihiin dunuubtii ayaa dabooshay anaga waay waxaa na sirtay kelmadan ah mar haddaan muslim ahay ahlu janna ayaan ahay waxaa doontid samee يعني يهودين وير mar haddaan caruurtii ilaahay aan nahay ahlu janna nahay 40 maalmood ee waalidiinteena weesha caabudeen kaliya nala ciqaabaya nasraanigan wuxuu yiri mar haddaan aaminsan tahay ciise inuu kii ku badbaadiha uu yahay ahlu janna ayaa tahay marka yani ilaahay quraanku yiri laysa bi amaniikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi sheegashadiina ma aha iyo sheegashada ahlu kitaabka ay sheeganayaan oo lan yadkhul aljannata lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaaniyuhum jannada ma geli doono ilaa qof yahuudi ama qof masiixi taasna waxay sheeganayaan waan iyaga marka sheegashadaas ma aha tii maaragta lagu badbaaday man yacmal suu'an kii xumaan sameeyo yujza bihi waa laga abaalmarin muslim ahaw ama ha ahaanin xumaantii aad samaysid yani waa wax abaalmarinteeda ku sugaysa markaa yowm alqiyaama marka saa daraaddeed nabigeena calayhi salaam yani wuxuu ku tilmaamay madowga ama daboolka qalbiga waxa daboolay waa dunuubtaas iyo macaasidaas imaam muslim
حديث كان أكسو وريي صحيح حذيفة ابن اليمان نبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان رضي الله عن النبي عليه السلام إنه يري تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا fidnooyinka dunuubta waxaa loo soo bandhigaa quluubtii sida markii darinta la samaynayaba loo soo bandhigo cawdi darinta maxaa laga sameeyay caw soo ma aha cawdi laga samaynayo cawdaas oo laisku keeno oo laisku tidcay waxay samaysay darin dunuubtaas badanoo hadda isbahaystaanna soo kale waxay noqotay darin daboolaysa qalbigaas marka فأي قلب أشربها قلب والبو جعلاد ذنبيغاس نكتت فيه نكتة سوداء دبع مذو أي قلبيغاس قاريس يعني في هذا حديث كان النبي عليه السلام أورنا قلبي ذنبيغاس سماء لكن ذنبيغاس أيو جعلاستي جعلاستي أتلفتر كيسة لا وعي قلبيغاس قارسين كدر كورن خفك هدي ذنبيغاس ومعركة سماء كورن خفك هدو ذنبيغاس عادة كدكتوب أوسن شلايتك دريمين أوسن لبين ذنبيغيسي markay kala daran yihiin wa ayu qalbin ankaraha qalbigi inkirana oo diido dambigaas inuu qaato ama aan jeclaysanin nukitat fihi nuktatun bayda dhibcad ayu qalbigaas yeelan hatta ta'uud alqulub ala qalbayn ila qulubta ay ka noqdaan laba qalbi qalbin aswad murbadan kalkuzi mujakhiya qalbi madoobaday oo aad u madoobaday oo isku bedelay sida kirliga shaaha lagu kariyo oo la futa gadiyay gadaal soo ka yahay soo ka madoowaasay dhuxusha marba ugu baysay kirliga gadaal uu ka madoowayahay sama aha saas ayuu ka noqonayaa qalbi futagadoomay ayuu noqonayaa oo xaqiina baatil oo arko baatilkiina xaq u arko qalbi isrogay murbadan kalkuzi kirligaas oo mujakhiin la futagay la yaarifu macruufan ma garanayo wixii wanaaga wala yunkiru munkaran munkarkiina ma inkirayo illa ma ushraba min hawa illa hawis wixii la cabsiye hal hawis iska raac qalbigaas قلبنا أبيض ونظيف وعديه فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض فتنة ما دبيس انت سماوات كدولك إجران انت اين نلاش جرتو وح فتنة هويراته دبيس ما جرت حديث كان كالتنا إمام أحمد بن حنبل كسوري أبي سعيد الخضري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحليه القلوب أربعة قلوبته وأفر قلب أجرد قلبي أو ما أركتي يعني حارا أو نظيف مثل السراج يظهر سذا فاينوس أما إليسكو كلو افتيمايا وقلب أغلف وقلب أغلف قلبنا ودبولين مربوط على غلافه وحنو كحرين دبول كيس إنه دبول ما يلا حري سقدر وقلب منكوس قلبنا ورغنيه وقلب المصفح قلبنا واسكح بلاريه واسكح فيتسيه أما القلب الأجرد قلبك أو نظيف كأ فقلب المؤمن قلبك مؤمن كويان فيه نوره نور كيس أيوكو حنبار سيه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يعني خف كان دون أي نور كاس إلهي سينا يهدي الله لنوره من يشاء نور كيس إلهي عدو دون أي يهدي ذا عدو قلبك وذا أرك نظافة في عن قلبك سو إلهي افتيمية وأما القلب الأغلف قلبك دبول أو دبولك حرين فقلب الكافرين قال ذي قلوب تودي ويان كوكو قالوا حقيقة إيجو أكدان إنكر إلى قلبك سو دبول إلهي نقم ديك كواس وأما القلب المنكوس قلبك فتقدومين الرقمي فقلب المنافق وقلبك منافقة عرف ثم أنكر يعني حقي أيو أقادي كدب نوو إنكر وأما القلب المصفح قلبك ما أركتي اسكفت سنة اسكحارن فقلب وقلب فيه إيمان ونفاق قلبي حنبارسن إيمان حنبارسن منافق نمو لابد بسلا حنبارسن فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة إيمانك كجروح ولمد يهي يعني عوسك عقارنا صابحي يمده الماء الطيب وحا عوسكاس بدبادينا يكورينا بيها وناكسن ومثل النفاق فيه نفاق منافق نماذا كجرتانا كمثل القرح وسذا نبرك أوكلا خفكم مركي نبرك صابحه يمدها القيح والدم وحا نبركاس كالمينايا أو سي بلارينايا مركو ماركتي فشفشو أو
malax iyo dhiig u yeesho nabarkaas wuu kusii ballaaranaya fa ayu lmaadatayni halaba cala alukhra halaba caleyh labadaas marka kii adkaado ayaa ku adkaanaya qalbiga marna hawadii munaafiqnimadaa jiidanaysa marna iimaankii ayaa jiidanaya labadaas meeluu marka dambe ku dhammaanaya qofkaas yani waa walciyaadu billah ilahay hanaga dhigo kuwa maaragtay iimaanka ku dhammaaday marka sidaa daraadeed xasan albasri yani markuu ka sheekeynayay raana calaa quluubihim wuxuu ku leeyahay huwa adhanbu cala adhanbi xataa yacmal qalb dembi kale lagu daray ilaa qalbigaas ka indhabeelo ilaa qalbigaas wax ka arki waayo xasan albasri ninkaas taabiciga ahaa nin wuxuu ahaa araggiisa ama midabkiisa ah midab maaragtay madow ah wamaca daalik haddana nuurka wejigiisa ka baxaya iftiinka qalbigiisa darteed ardaydiisa iyo asxaabtiisaba waxay ohan jireen wejigiisa markaan aragno ilaahan xasuusana dadna wejigooda markaa aragtid murtaaxad ku noqonaysaa ilahay ku xasuusinaya araggooda dadna wejigooda markaa aragtid yani ilaahay way kaa didinayaan ama isagaa qofkaasaaba ka didaysa walciyaadu billah waxay yiraahdaan marka carabta gabay oo ma aragtay culamaa tasawufka aada usoo daliishadaan idaa sakana alghadiiru calaa safaa'in wajuniba an tuxarikahu nasiimu hadiir waxaa lagu magacaabaa biyaha daadka ka tagay daadka maaragta markuu socdo daadka badanaa wuu wasakhaysan yahay soo maaha biyo ayuu ka tagay biyaha wuxuu ugu tagay dhagax nadiif oo saafi ah ayuu biyahaas marka hadiir waxaa lagu magacaabaa biyahaas yaroo meesha fadhiyo calaa safaa'in saafi noqday wasakhdii oo dhan ka degtay oo ka baaba'day biyo nadiif oo noqday wajuniba an tuxarikahu nasiimu lagana fogeeyey neecawda xataa inay dhaqdhaqaajiso biyo fadhiyo oo dhaqdhaqaaqeen ayuu noqday oo nadiif ah badat fiihi asamaau bilamtiraa'in samadii ayaa ka dhex muuqanaysa biyaha markaad eegtid waxaad arkaysaa yani samadii kadaaka ashamsu tabduu wannujuumu sidoo kale qoraxdii biyahaasay ka dhex muuqanaysaa iyo xidigihiina biyahaasay ka dhex muuqanayaan kadaaka quluubu arbaabu tajalli saas daraadeed marka waxaa la mid ah quluubta kuwa yani qalbigooda saas nadiif u noqday waxa yani ilaahay subxaana watacaalana iftiimiyey yaraa fii safwiha allahu alcadiimu saafinimadeeda darteed ilaaha laga dhex arkaa qalbigood wejigooda ilaaha laga arkaa ilah ku xasuusinaa ilahay kuwaasoo kale hanaga dhigo kulligeena marka xudayfa ibn alyamaan isagana waxaa oran jiray idaa adnaba alcabdu danban nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa qabka adoonka hadduu dembi galo qalbigiisa dhibic madow ayuu yeeshaa xataa yasiira qalbahu kashaati rabda ilaa qalbigiisa ka noqdo rida dhibcaha badan leh yani ricad laakiin dhibco badanoo madow leh qalbigii wuu cadaa dhibco badan oo yeeshay madow oo wasakh ah ridaasoo kale u ekaana qalbigii gudaha ku jira marka culamadan waxay yiraahdaan ina sawaad alqalbi min adunuub qalbiga markuu ku madoowaado waxay ka yimaadaan dunuubtii aad gashay wa calaamat sawaad alqalb waxaa ku cadaynaya qalbiga inuu madow yahayna anlaa tajida lilquluubi min adunuubi mafzacan qalbigaas inuusan dembiga ka didin dembiba u arkin dembigiina u bartay ka didin qalbigii markaas wuu madoowaaday walaa litaacati mawqican taacadii ilaahayna boosku ma laha qalbigaas salaad iska waxay shakliga dukanaya niyadiisaba aan joogin oo degdeg ah salaad qaar way ka tegaysaa qaarna ma aragtay yani khushuuc lama socdo walaa lilmawcidati manjacan wacdigana saameyn kuma yeesho qalbiga hadduu heerkaas gaaro ilahay qulubteena heerkaas ma gaarsiiyo cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu oo nabigana adeerkiisana wuxuu oran jiray ina lilxasanati nuuran fi lqalb wanaaga xasanaadka aad samaynaysa qalbiga iftiimisaa wa diyaaan fi lwajhi wejigaagayna ka muuqataa ilayska qalbigaaga wasicatan fi risq risqiga ilahay ku siina waasicu kuu noqona ilah ku barakeyna ha yaraada xataa wa quwatan fi lbadan jirkaagana wuxuu awood u yeelanaya cibaadada colays kuguma noqonayso wa maxabatan fi quluubi alkhalq dadkana way ku jeclaanayaan yani man axaba allah axabahu nnaasu walow karihu qofka hadduu ilaahay jeclaa dadkana way jeclaanaya xataa hore haddii u necbanaan jireen wa ina lisayi'ati dembigana la sawaadan fi lwajhi wejigaagana mugdi ayuu ka dhigaa wuu guba wa dulmatan fi lqalb qalbigana mugdi ayuu ka dhigaa qalbigii mugdi ah wejigiisa ka muuqanaysaa qofkaas wa wahanan fi lbadan jirkaagana wuxuu ka caajisayaa cibaadadii iyo taqwadii iyo salaadii iyo soonkii wixii la midka ahaa
ونقصا في الرزق رزقنا بركة مالها حتى هدت حول لها فقيرا يدك تهي وبغضة في قلوب الخلق dadkiina qulubtooda waxaa ku galaysa nacayb dadkiina waxay bilaabayaan markaas inay ku nacaan marka tan koowaade qalbiga oo dunuubtaas ku dhacday tan koowaad qalbiga waxaa ku dhaco madow wuu wasaqooba qalbi wasaq ahna ilaahay subxaana wa tacaala ma ola kulmi karo waxaa ku dhacaysa qofka noocaas oo kale marka tadciif assayr ila allah يعني إنه كتبر دريو سفر كاس إنه كجابي سفر كي وسفر لها جعلك إلهي إمام الغزالي رحمه الله حكى وإن قيد الذنوب حرج ذنوب حبس الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله وعكام ممنوعايا إن أسي سعتد هو كان سنانت إلهي لأن ثقل الذنوب يمنع من الخفة صوته علاسك الدنبجة وعكام ممنوعايا فضيتك إن أضفت فضيتك إلى الخيرات وناجي والإصرار على الذنوب دنبجي لغسي تاجنا ذنا يسود القلوب قلوب أي مذوبية فتجدها في ظلمة وقساوة وحد أركز قلبك إنه مجدي أضيق إنه قلق قال الفضيل بن عياض يعني نكي صالحها وحورنجري إذا لم تقوى على قيام الليل هداد سأركتت إن هذا أودين صلاة الليل ما أسوك عدد ساعدت بوحينيسا ودمينيسا ساعة كده من مسوى توسيسي هدي ساعد بحسن اسكاب الداب صلاة الليل كمسوك عكرتب وصيام النهار يعني مالنتين إنا سنت هديك وقت كاتو فاعلم أنك مقبول وقو إنا تحبس كجرتد قد كبلتك خطيئتك ذنوب تهذانك حبسين يعني الذنوب إنها تكون حجرتد أو استغفاري توبة كان إنها ضبانتها وحكوا عدينا مركي كوا أتكات صلاة الليل كإنا أسو توستد إيو مالنتين إنا تسنتد ابن القيم الجوزية كتاب كسماتي عاها الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي استغنى حكوا ليها ومن يعني عقوباتها ذنوب عقابات كذا دباتون كي جيسنا يسوع كمدها أنها تضعف السير إلى الله يعني وحي تبردرين يسا سفر كايات وسفر لهد إله سبحانه وتعالى والدار الآخرة إيو دارتي آخر الجنة وسفر لهد أو تعوقه وتقطعه عن السير يعني أما دب أي يعني ويبكو عاجزين يساوي كها ريب يساء أو سفر كايات كها كان يساء فالذنب يحجب الواصل ذنبك اسكبر داف قفك حد سفرك بلاويه كي إلهي محبدي سجاري حتى إلهي كحرمي ذنبك وحو كحجاوة يا إلهي ذنبك إلهي كحجاوة ويقطع السائر كي سعودين سفرك أيو كجوجنايا وينكس الطالب كي بلاوغاها الرادين هذا وضد إنه قاتل ذنب هدو كدعو دب أيو الله بنايا خفكاس والقلب إنما يسير إلى الله قلبك نوح إلى أصفراء بقوته مركو أود لي مركو عافمات قو فإذا مرض بالذنوب هدو ذنوبت لحنون سدنا ضعفت تلك القوة التي تسيره أود سويراني قلبك مركو رسعت سينيسي كديجيس إلهي إنه أصعد تاس وتيلوا تنسدحات الذنوبت اللي يضعي وحيويان تضعف تعظيم الرب قلبك وحي كتبر دريسين يساء إلهي إنه كوين والله dadka ha eegin garkooda iyo khamiiskooda iyo jirkooda iyo qaabkooda laakiin waxaad eegtaa suu ilaahay ugu heebaysanay qofka haddaad aragto qofka inuu ilaahay ka heebaysanaynin isku maleeyaba isagaba ilaahay inuu xukumo ogow qofkaas yani dunuubtiisa ayaa heerkaas gaarsiisay ismana oga isaga ومن عقوبات الذنوب ابن القيم وكلها سيدك العقوبات ذنوب تحكمت أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله قلبك وحي كضعيفين يسار ربك نكوين هذا وحان شكل أهان أيضا جيل يسال كليقا مركا التهي يعني ذنوب تضع دبالا يسار وتضعف وقاره في قلب العبد إلهي إنه كهي بيستنى قلبك ضعيف أي كليقا يسار ذنوبتي ولا بد وأنا قصبت إني دعوة شاء أم أبا ها أقول هذا خفك أما هديده ولو تمكن هدي ودقي لها وقار الله يعني كهيبيس شذي إلهي وعظمته يوينينت إلهي في قلب العبد خفك أدونك قلبك سدين تصدقي لهايين
لما تجرأ على معاصيه كما ديردين إنه الذنب كدعو وربما اغتر المغتر خف كان وحا لغا يابا انه اني كديسو انا دنتان هايسو ku kadsan waxay tahay وقال يراد وانما يحملني على المعاصي waxa uu kalifay dambi inaan ku dhaco حسن الرجاء وطمعي في عفوه إلهي رجا في عنان كلا إله غفور رحيم وحان دمعسنا إنه يعفن دون إله سبحانه وتعالى لا ضعف عظمته في قلبي معها إلهي قلبي إنه كوين إلهي قلبي كوين يا لك وحوك إله غفور رحيم إنه سجد بالنا يدم بيجي هذا مكة خفا موت كصباحي وهذا وحكله من مغالطة النفس تاسن وخلطاتك أي نفس ذاتك قلنا سويان فإن عظمة الله تعالى جل جلاله صوت وينينت إلهي في قلب العبد خلق قلب قصد إلهي كوين هي تقتضي تاسوح يكون جينيسا تعظيم حرماته إن أدوح إلهي كحارنت بين كل وينادا وتعظيم حرماته تحول ما بينه وبين الذنوب يعني حرماتك إلهي أدوينيسيد إنه حكا حجابيسا ذنوبتا بينات كل عدي إن ما أركتي ذنوبتا أدسكا إلهي لسي لكن مركات هذا إلهي قلبك وكوين لكن إلهي غفور رحيم ودنبك ودوالنا يا إلهي قلبك ولكم وينا قلبك ولي نظيف معها دنبك يا دنبك لكو كان إلهي هركاس نكو قارسي تن أفراد oo dhibaatooyinka dunuubta ay leedahay waxay tahay qaswatul qalb qafka dambiga badsado qalbi adeeg ayaa ku dhaca qalbigiisa wuu qalala ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka aayado badan oo ku sheegay faqasat quluubuhum wa kathiirun minhum faasiquun quluubtooda adkaatay way badankooda dad faasiqiin ah badankooda waa kaafiriin lama oranin laakiin waa faasiqiin fisqiga iyo dunuubta badan qalbigaaga wuxuu ka dhigtaa qalbi dhagax oo adkaaday آيات كلا نحو كلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وحا هلاك أسقنا ذي يوم القيامة تدك قلوب هذا كأت كاتي إن إلهي حست كواسنا وحكو تسقيهن بعضني معد قلبي قاعد هذا عرفت إنه أذكي هي وجو إن استهنتد إسكشكيسد أو بعضني ما إسكدريتد ويان إمام يحيى بن معاذ الرازي أن لقى يران تيس كسا برباري تقوذي إي محبذي إلهي سبحانه وتعالى إي عبادتي مركي دادي سويناتي أقبوبي أيوير إلهي يو كبرت سني دادي ذوي ويناتي ووهن عظمي لفهيغان ويدبعين ويجلعين دادي ذوي ويناتي لفهيغان ويجلعين عبادتي سهر أم سمين كرو وقسى قلبي كان وأتكاذي وبخلت بالماء عيني إندهي كانوا حي بخيلان إن إلميان إندهي سمركي قللين يعني وحو قادي إني قصبي قلبي كان يكسعت قلبي أتكاذي إندهي كانوا إلميان أبعد المشيب تعذبني مران قبوي كدب ماد إلهي عذاويسا ومن مقطعات النيران تلبسني نارتي يدتك جرجري اسميات إلا بس دونتا إلهي يوم القيامة يعني قفك الصالحة قلبي سنظيفك واستخير بك سوق قارتو دريمايا ماشي إني ما أركتي وحس كبدلين وهي قلبك أسهولي نال إلهي السوق الوحولي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة يعني كدب قلوبتين ويسيئة كاتي وحي نخاطسي لقحي وكالي ويبك السيئة ذكتهي فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يعني ما دام باللمدي اي جبيين وإلهي كقالين وان لعنا ذيني كدبنا قلوب تضحان كدقنا قلوب أذك النبي قال حديثك أحمد بن حنبل سورين حوليه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون هذا الكين يسان أبضان يعني وحان ذكر إلهي أحين هذا الكبضان وحاتك يا قلبك أذقنا إلهي وكفوق جاي لكن ما أكتين هذيك ما دري ميسين لكن قلبك هدوءت كذا إلهي وكفوقاته إلهي آيات الحكلة فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا مركي دباتنا أتم هذا هدي إلهي بري لهاين ولكن حتى لبك هدو إيمان خفك إلهي بري هدو قلبي سأذقيا لكن قست قلوبهم قلوب تضاءت كاتي وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان كانوا قرحي وحي سميناين إلهي نملك النبي محمد أمانة يمحكيري ولو كنت فظا هدي أتخف عرب أذك غليظ القلب قلبي سنة أذجهي
lanfaduu min xawlig, intaan saxaaba ma aad yeelateen, waa lagaa diidi lahaa, agaarahaaga laguma soo dhawaadeen nabi maxamedo. laakiin fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum, laakiin naxariis ilahay xaggiis kaaga timin darteed aada noqotay qof dibicsan. hadalka uu yiri mawlaana jalaal الdiin الruumi qadas allahu sirah, kulamaa tahura alqalb, qalbiga mar walba daahir noqdo, raqa wuu jilcaa. si aad u ogaad qalbigaaga heerka uu joogo, markuu daahir noqdaba wuu jilcaa. fa idaa raqa, markuu jilcana raaqa, markaasuu saramaraa. dunuubtii markaad ka daahir noqotid ee qalbigaaga jilco, yacni buurtaas waa gudbaysaa, sara usii soconaysaa. fa idaa raaqa, markuu ma aragtay saramarana daaqa, markaasuu dhadhamiyaa jaceylkii ilaahay. wa idaa daaqa, markuu jaceylkaas dhadhamiyana faaqa, wuu baraarugaa. markii hore dhanba hurdaan ku jiray uu leeyahay, haddaan soo baraarugay. imaam cali calayhi salaam wuxuu oran jiray, kuma farxeen inuusan ilaahay i abuurin aanba jirin, waayo waxaan dhashay oo jiritaankayga ii bilowday markaan ilaahay bartay. yani ilaahay jaceylkiisa markaan helay ayaan dhashay, jiritaanka dhabtaan taas markaas ii bilaabatay. marka qofka jaceylka macaanka ilaahay dhadhamiyo ma jeclaysana inuusan jiri lahayn, waayo macaankaana gafi lahaa, maxabada ilahay ay gafi lahayd. waidaa daaqa faaqa, markuu dhadhamiyana wuu baraaruga. waidaa faaqa, markuu baraarugana ishtaaq, hadan ilahaas ayuu u xiisaa. waidaa ishtaaqa, markuu ilahay u xiisana ijtahad, wuu dadaalaa, dadaal ayuu la yimaadaa. marka taas waa tan shanaad, marad lqalb, qalbiga ayaa xanuunsanaya. quluubta saddex ay u kala baxaan: qalbun saliim, qalbi caafimaad qabo, oo ilahay qur-aanku yiri nabi ibraahim markuu ilahay baryayay, walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ilaahu ha i hoojinin maalinta bacthiga, maalinta qiyaamo, maalin aan xoole iyo carruur waxba ii taraynin weeyaan, ilaa qofkii ilaahay la yimaado qalbi caafimaad qabo. qalbi caafimaad qabo qofki ilahay la taga, kaas unbaa badbaadaya yowma alqiyaama. marka qalbiga marka kan caafimaad qabo waa kii badbaaday. waxaa ku xiga qalbu mariid, qalbi xanuunsan, ama shahawaadkii ha xanuunjiso ama munaafiqnimadii ha xanuunjiso. qulubta qaar way jiran yihiin. qaar culamada waxay oran jireen, low kushifa alxijaab la ra-ayta annaasa kulluhum sarca. haddaad xijaabka lagaa qaada dadka qulubtooda lagu tusi laha, waxaa arkaa qulubtao dhan inay suuxan yihiin. yacni heer waxay gaareen in xanuunkii inuu suuxiyo, xanuun daraaddeed la socsan yihiin, maba la socdaan ilahi subxaanahu wa tacaala. ilahay nagama dhigo kuwaas. marka maradkaas waxaa ugu sii badan markaas oo ka dambeeya waxaa mowtul qalb, qalbiga inuu dhinto. waxyaabahaasoo dhan waxay ka dhashaan dunuubta iyo macaasida. waxaan ognahay ibliis calayhi lacnatullah, markii hore nin saalix oo ahaa oo malaa'igta ku dhex jiray, la joogay. gaalnimo maxaa gaarsiisay? dembi darteed ilaahay ku caasiyey. ilaa ibliisa abaa wastakbara. ibliis markuu ilahay amray nabi aadam inuu sujuudi ixtiraamkii qadarinta u sujuudo, amarkii ilahay ayuu diiday. kadibna ilahay fursad ayuu siiyey, maxaad yani u sujuudi laadahay maadaama aniga aan ku amray? wuxuu yiri anigaa ka kheyr badan. heer wuxuu gaarsiisay markii dambe dunuubtiisaas inuu gaaro gaalnimo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay ku gaaloobo. sidoo kale ilahay wuxuu noogu sheegay qisadii caalimkii yahuudiga ahaa ee la oran jiray balcaam ibnu baacuura, oo xataa culammada ay markay ka sheekanaya yirahdaan heer wuxuu gaaray yani ducadiis ay mustajaaba ahayd, ay qaar yirahdaan ismullahi alacdam ayuu yaqiinay. haddana markii xoolo adduunye iyo waxaas loo soo bandhigay oo nabi muuse u diray reer bani israiil dacwada inuu gaarsiiyo, dadkii way gateen. balcaamkii akhbaar lagama hayo. maxaa dhacay? ninkii waa la gatay, wuxuu bilaabay dadki inuu lumiyo. يعني إلهي سبحانه وتعالى آيات كسو دجاريس نوشيك واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. dadka ku dul akhri kii khabarkiisa aayaadkeena aan siinay ee aayaadkii ka dhex baxay fa atbacahu shaytaan, shaytaankii ayaa raacay. ma aha fatabicahu shaytaan, shaydaankii ayuu raacay ma aha, shaydaankii ayaaba isaga arday u noqday. fa kaana wuxuu ka mid noqday min almuqwiyiin, ma kuwa lumay ma aha, min alghaawiin, kuwa dadka lumiya. walow shi'naa haddaan doono la rafacnaahu biha, saraan ugu qaadi lahayn aayaadkan, laakinahu akhlada ila alard watabaca hawaa. laakiin noloshii xoolaha adduunyadu ka doortay iyo magicii adduunyada hawadiis ayuuna raacay. heerkaas ayuu gaaray. marka dembiga qofka heer wuxuu gaarsiiyaa markii dambe uu ku gaaloobo ilaahay subxaana wa tacaala, qalbigiisa uu dhinto oo gaalnimo gaaro. ilaahay subxaana wa tacaala heerkaasna ma gaarsiiyo.
arrinta markii heerkaas ay tahay maxaa xal ah marka? naxariista ilahi waxaa ka mid ah inuu ilaahay rasuul noo soo diray oo qur-aan noo soo dejiyey, daawo cudur walbana daawadiisa noogu caddeeyey. haddii aan u fiirino dhanka aragtiyada kale oo qofka dambiilaha ah muxuu samayn karaa, khilaaf baa soo galay. anaga diin ahaan ama kuwa ilaahyaasha ilaah rumaysan oo mu'alihiinta ilaahay ku xiran, waxaa laysla aaminsan yahay qofka inuu furan tahay albaabka waa toobad keenida. imagine haddii qur-aanka aysan ku jiri lahayn aayado caddaynaya ilahay inuu ghafuur raxiim yahay, ilahay in loo toobad keenayo, oo qofka dembina ku dhacay noloshiis muxuu ku dhamaysan lahaa? ciil ishalayt soo ma aha, laakiin hawalwelin oo diimihii waxay xambaarsan yihiin baab tawba, daawadii toobada ahayd. diinteena islaamka inta aanan gaarin, yani dadkii aragtiyadii hore marka aad fiirisid, yani Platon ardaygii Socrates oo nabi ciise dhalashadiisa ilaa 300 sano oo kale ka hor ahaa, wuxuu ku leeyahay at-tawbatu toobad keenida hiya al-falsafatu daataha, falsafada la sheegayo waa toobad keenida. fahiya tabda waxay ka bilaabanaysaa toobada min dahshati al-insaani bidambihi, qofka inuu ku baraarugo dambigiis, ثم السعي كدبني إنه أخاخه نحو الحق دنك إلهي سبحانه وتعالى. تاسبو فلسفة ما شيء كبلا ونسوا كلها خفك إنه درام دنبيله إنه ياي وراسد توبة كيندي. أرضي أرسطاطل إنه كلها الخطأ بشري، بني آدم وحلو يهي الدنبي إن لقرأ، ولكن التوبة فضيلة، لكن إلهي إن لو توبة كان وفضيلة وهو نكسر. كدب حاركيسا فلاسفة ربوبيين تأها سيد جان جاك روسو، يعني دي إيست وين إله إنه جرو آمن سنة، لكن إله إنه حرير نلليه هي ما آمن سنة، إله إنه مخلق يصلح حرير ما آمن سنة. وكل يا مركة الإنسان الصادق خفك دا عدا بني آدم كأه لا يندم كمش لا يندم بيقو قالي، يعني وحو إنكرستين يا خفك إنه كش لا يدنوبته قالي، بل لكن يتوب ويغير سلوكه، لكن وتوبة كينا يا دقن كيسان وبدلايا، وتوبة كينا يا دقن كيسان وبدلايا. وجان جاك روسو أديك مركات صح رئيستي مسكينتي تريزا الأورنجري صدن يسدح سنة كلنا نولد إن تري واقف رمية أو أدك أو دخن ويلي حفلة أمك حيسنين وحنا كحش هذا بنوع سكال نقول السحر. أفرتي عرور أي ولا شيء مد قلب وحكوت ورق مالها ما عرفتي أورفانك عن أقوات لو كوريا من لدني إنجرين كل جدول كلنتين كي أقوينا ورخط أي رأسي مجلس أنا كم خارج عنو جان وين أجي أمك خارج بس نيكاس مرك فيلسوف كاس ربو بيجا كمش الله ينا وحكور داعي، لكن نولش إنه بدل أيو ديارو يداس ماشي كور دمات. كدي بحار كيسا جان بول سارتر وفيلسوف ملحد أها أو وجودي أها مركز سجى ما دام إلهي ورميسين توبض محو أركا وحكولها الندم أو محاولة التلاص، يعني إنه خفك الشلاية أما إنه كد ذاله خفك إنه كد ذاله التنصل إنه كبح سنة من أفعالنا السابقة أفعاش عن هروء سميني هو نوع من سوء النية. تاس لفظك هذا وحي تاي نية حمي باد فيث أيو بحي خفك النية دحن وش الله يعني يوحون وددال عذر إنه راتسده وبحثه خلطاتك هروء وقلي سؤالنا ليش وبدله. فالإنسان خفك إنسان كمسؤول عن كل ما يفعله، إساك كمسؤول وحل بقوس سماء، ولا يمكن لأي توبة أن تمحو توبة كستنة ما دخي كرت خلطك وخفك قلي ما أن تمحو ماضي الإنسان وحي هر الله صدافة أو تغير حقيقة اختياراته، أما إنه يبدشو حقيقة دورش إساك دور تودس إنه خاطو. فيلسوف كي إساقنا وجود دي قال أها مركز أيا كجوابي سورين كريكي جارد أو دنماركاس كأها وحكولها التوبة هي يعني توبة الحقيقة توبة الضبطة هي التنقل هي التي ينتقل الإنسان تاسو أتخافك بني آدم كمش وكتجي من حالة اليأس حالة دي إسكخوص الشذ بل خف كان دنبي لها ونسن أوجين توبة كيند إني جرتو
soo ma gaaraya marxalad iska quusto wanadam iyo yani shalaytadii calaa xuriyatihi lmutlaqa inuu ka shalay xuriyadii zaa'idka la siiyey ilahay xor ayuu kaa dhigay oo markii hore dembigaad ku dhacirto ilahay wuu ku xirxiri karay laakiin ilahay wuu ku doortay wuu ku karaameeyey xoriyadaada ku siiyey فالإنسان مسؤول عن كل ما يفعله يعني سورين كريجارد ندعو على حرية المطلقة إلى مرحلة دينية يعني خفك وحو قد بايا توبة مركي نقطة مرحلة دينية حيث يواجه قلقه سو أواجه والولكي عبسيدي أو يعني كول سنة مستقبل كسان قضانا سود ما دام دنبيرو وياه ويعيد توجيه إرادته وحونا يعني بلاوايا inuu leexiyo hago rabidiisii marka hore hadii shahwadaada un kala dherji wax walba sameey xumaan walba ku dhac isbedela ku imaanay qofku markuu toobad keeno wa wujuudihi ijritaankiisa xagu u jeedinaa naxwa al-mutlaq Allah ila xagis ay u jeedinaya mutahammilan mas'uuliyata daatiha isagoo xil iska saarayo noloshiisa oo mas'uul ka yahay Albert Camus iyo Albert Camus marka wuxuu radinaya markaan filosoofkii aan ka sheekeynay Jean Paul Sartre ay yiri toobadkeen wax la yiraahdo ma jirto Albert Camus wuxuu ku leeyahay al-i'tiraaf bil khata khafka inuu khaladkiisa qirto wan-nadamu alayhi kana shalay huma awwal khutwatin nahwa isti'aadati al-karama al-insani wa tilabta ugu horeyso oo karaamadii bini aadamnimada ku soo celinayso riwaayad ayuu ka sameeyay hadalka uu sheegay Jean Paul Sartre oo yiri toobadkeen wax la yiraahdo ma jirto oo u bixiyay fail يعني دعتانكي وحكوا لها يمكن لرحلة الاعتراف بالخطأ يعني خفك خيرانا خلط إنو قلي وحا صورة قلقة إني قارسيسو محاولة يعني تجاو يائسة الله خوستي لاستعادة البراءة في عالم عبثي إن أي عذردار أي سيان أي بري كدقان أو يرادان خف كان وخفي عنه وطوبت كاني ييهن على العالم العبثي عالم كان ملحدين تاه عبثيين تاه يعني ملحد توبت كانت ودي ذي إنه قرته السجي هذه الله توبت كان خلط كاسان كان قال إيه عفلي يرادان وحبانتها كلها هي أنا دخت كل مسير سنكو أقلاني نخف كاس مما يبرز عمق الصراع الداخلي للإنسان حول أخطائه تاسنا مركا وحيكون موجينا يساها خف كاس جوديه سنو ويليس كجوبناي يعني الضمير أيد جودها كلها ضحي عالمك واحد حاجة شيء الحاد كان ما أقبل توبة كيندنا ما بقى من سنة أذيجنا جودها ويليا كجوبنا يسوي كلها مركزات حالة مركز تاسو كلا أي تاي يعني ساسي كوانا مصامري يعني لنك أركتذا أو ما أركتي فلسفات كي كخبت توبة كيند تاني إسلام كان أسوجي سنة سو وقتي أنا أقول له من أنا كل رانين عشرة إسلاميا مركا أفيرسيد إلهي سبحانه وتعالى ما كليه إنه ذنوب تعفيه بل إلهي وحنقول يرجلنا إن نتخبط كنا آيات بدن قرآن كرعكله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تديه مؤمنين كل نبأ إله أتوبت كان ساد أولي بانتان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة تديه مؤمنين تا إله أتوبت كان توبة كانت أو داعدة آيات كالإله وحكله إن الله يحب التوابين إله وحجعل يهيبكوا أتوبت كان إلهي سقى وجعل عدو توبت كانت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وحد كتر هذا أدوم ذي يكون نفس ذلك حد قدبي حكى خصانين أنا حريستي إلهي إن الله إلهي يغفر الذنوب جميعا ذنوب تنوع فيها إنه هو الغفور الرحيم إلهي واكد بدافع ودنا أنا حريستنا بدنا هو أنيبوا إلى ربكم ربي جن مركوسه إذا إلى عيدك الاستراع سينايا حديث إمام مسلم سوري نبي عليه السلام حوليه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار إلهي سبحانه وتعالى نحريستيس إدن بدافكيس هبينك أيوب في ذياء سيء أطوبت كانوا كي مالتي إدن بكدعي حديث كي أن أغين هبينك سدح مال مركي لو قيبي قيبت سدحات وحاسور دوانيس إلهي نحريستيس مركزو ليهي ميدن كوجرة هل من تائب فأتوبوا عليه خف ذنبي هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه خف يتوبة كينا يمجرى سيان ذنبي يسوى عفيه خف استغفار سنة يمجرتا سيان ذنبي دافكي عن أصيه وعد وحي ويدين يسميدون كجرتا سيان أصيه خف كاسو حربي
يعني وقت دم بسحر كقف كدو صوت توصل وإلهي بريو إلهي دم بداف ويديستو إلهي سبحانه وتعالى دعاديس وأقبلايا إلهي ونحرس شيخنا شيخ ويس القادري قدس الله روحه وحورنجري أقول وقد مضى ليل طويل ورب العرش يسمع ما أقول هبين كيدان هذا لا ينكو هدلا رب العرش هو إمخلا وحنكو هدلا هبين كيدان صلاة الليل إلهان لشاكيستا إذا نام العبيد وكل شيء مركو هردو عبيد وأدونك يرى العبد أدونك أدبتها مهردو يعني وسوجي صلاة الليل ودو كذا لك أدونك ير وإسكا سيحدا وكل شيء وحول بن أي سيحدان سوى من لا ينام ولا يزول أن كأهن إلهي أن هردين أن زولين عجبت وحن لياوي شيخ ويسا أورناي لمن ينام خفك هبين كده نسكا سيحاناي وذو المعالي إلهي سريين ينادي دتك ويرا يا عبادي أدوم ذيذيو أنا الجليل أنا وحنا إلهي وينا فهل من سائل يدعو فيعطى ورمجر تاعد إلهي بري يسحل لغاس سي الله سيوحو إلهي بري فليس يخيب سائله سهول كي إلهي برينا ما خسار فيا طوبى وحي أدعتي لمن قد قام يدعو كي هبينكي صوت توسي إلهي بري بصوت خاشع عد خشوع كجر وله عويل إلهي وإناية إذا رفع الحجاب مركز ومركز إلهي قلبك حجابك قاض يقول حكوليه عبدي أدونك يجيو أنا الرحمن ربك لا يزول وحنا رحمانك ربك أنزولين مركا هيركاس أجرت إلهي اسكو بندكتد مركا إلهي نبينا حكوليه ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلهي مالنتي وحفظيان حريستيس سو أطوبت كانوا دم دافو أسيكي هبينكي دم كدعي dad waxaa jira habeenkii ku dhamaysta macaasi iyo dambi ay maalintii gali jirin habeenkii dadka markay iska asturaan yaani ku dhaco kadibna haduu iimaan leeyahay iimaankiisa gubay qafka maalintiiba toobadkeen la cararayo oo soo orday yaani muxuu yiri ninkii shaacirka ah rabbi hab lil mataba hatta atuba wa ahyi qalbi yawma tahya al qulub ilaahu dambi dhaafisi si aan u toobad keeno qalbigeygana noole markay qulubta noolaanayaan تعست ليلة عصيتك فيها وحا أيان درن خطي هبين أنكو عاسي كيف لم أستحي وأنت الرقيب محان كاكشون ويدن بغاية مركم كل دعاي أني قوة قيله هذا جينا دي جيد في ضمير كي ساقف كاسو كالقوي لكن تدو حيكا ديكتين بالجوكت إنا كل دعان يعني دنوب تاس أو كلا مركا على كل حال توبة مركا وحيلاتها درجات توبة وحاول دنوب أد نوالك قشي نولاس إنا دن بدافو يديستid waaba hadii aad awoodid hadii aadan awoodin ilaahay inaad ka barid inuu ma aragtay kaaga abaal gudo qofkaas aad dambiga ka gashay qafaad xoolo ka dhacday isku meel ma joogtaan kuwa kala fogtihiin ama wax la midka ah ina u sadaqaysatid hadaadan haysanin ilaahay tiraadid ilaahu qofkaas iga maslaxay yawm al-qiyaama ilaahay subhanahu wa ta'ala awood ayuu leeyahay inuu qofkaasna ka qanciyo iyo dunuub aad awoodid qofkii inaad wixii u celisid dambiga aad ka gashay aad dambi dhaaf weydiisatid iyo dunuub adiga iyo rabbigaaga idinka dhaxeeyay oo loo baahan yahay kuwaasna inaadan fududaysan inaad iska taahirisid marka imaam abi al-hamid al-ghazali isaga wuxuu ku leeyahay marka toobada tan ugu sareyso a'la maratib at-tawba wa afar waxa wada ku yiri mid oo ah inaad go'aansatid dambigaas adoo sameyn kara inaadan mar kale ku laabanin dambiga wili awood oo leedahay inaad mar labaad samaysid laakiin inaad go'aansatay inaadan ku laabanin dambigaas oo kala ah tan labaad oo ah inaad go'aansatid yaani inaad ku dadaashid inaad soo xasuusatid dunuubta aad gashid si aad mid ugu toobad keentid dambigaas ilaahu galay ha is ilowsiin soo xasuuso dambi dhaaf weydii mid kale soo xasuusadan ilaahay dambi dhaaf weydii in aad ka tagtid dambigii hore u gashay oo kale mid la mid ah inaad ku dhacdid adigoo isla awoodii leh macnaha maxay tahay dhalinyaro ahayd waxaad ku dhici jirtay zina hadda markaad gabowday ayaa tiraahday ma zina dambiga zinada ma ku dhici doono waan ka toobad keenay ka toobad keenidaas lama mid aha adigoo awoodii leh maraad ka toobad keentay tabar dari ayaa ku diiday inaad dambigaas ku dhacdid markaas tiro waan ka toobad keenay laakiin taas ma tan waxa la jeedaa kulay abi hamid al-ghazali inaad ka toobad heen dambigaas oo wili ku dhici karo adoo wili xoolaha xadi karo adigoo wili zamanadii sameyn karo
haddana inaad go-aansatid adigoo arkaya dembigaas inaad ka leexatid. tan afaraad inaad dembigaas iyo waxyaabahaas aad ugu tagtay ay ka ahayn dadka agtooda sheekhaad ka noqotay is ilaali, ama magacaad yeelatay is dhowr, ama mas-uuliyadda xambaartay is ilaali, laakiin ay ka tahay keliya ilaahay subxaana wa tacaala dartii, wax kalena ay ka ahayn. waxaan kusoo koowayaa marka hababkee ugu fiican ee ilaahay subxaana wa tacaala loogu toobad keeni karaa oo quluubteena ku nadiifin karnaa anagoo ku dadaalayno quluubteena inaan ka shaqayno oo wiiga soo socda ama casharka soo socda aan u nimaano qalbi aan kasoo nadiifinay wixii hore aan u galnay oo dhan. xadiis waxaa jira nabigeena calayhi salaatu wassalaam yacni laga soo wariyey oo lagu magacaabo salaatu tasbiix, salaadii tasbiixa ahay. nabigeena calayhi salaam wuxuu la hadlayay adeerkiis. xadiiska waxaa soo wariyey abu daawud, ibnu maajah iyo xaakim iyo annasaaina waa loo tiiriya. nabigeena calayhi salaam adeerkiis cabaas ay wuxuu ku yiri, yaa cabaas, yaa cama adeerkeygiyo, alaa uctiika wax maku siiya, alaa amnaxuka hadiyad maku siiya, alaa axbuuka yacni wax si gaara makugu sheega, alaa afcalu laka 10 khisaal 10 faa'iido makuu sameeya, idaa anta facalta dalik haddaad taa samaysid, arrinta haddaad samaysidna gafara allahu laka dambak, ilaahay dunuubtaas inuu cafinayo. 10ka maxay yihiin marka? awalahu kii koowaad, wa aakhirahu iyo kii ugu dambeeyey, qadiimahu kii dembigeed hore u gashay qadiim ahaa, wa xadiisahu dembiga cusub, khata'ahu mid si gaf kaaga dhacay, wa camdahu midaa ugu tala gashay, sagiirahu kii yaraa, wa kabiirahu kii weynaa, sirahu kii siraad u samaysay, wa calaaniyatahu iyo kii ugu talagalaad u samaysay. 10 khisaalin waa 10 faa'iida ayaad ka hesha arrinta haddaad samaysid. arrintaas marka maxay tahay? nabigeenu noo sheeg, adigaa murabbigeena ah. wuxuu ku leeyahay an tusalliya 4 rakacaatin, 4 rakac inaad dukatid. dhib may kugu tahay 4 rakac inaad dukatid. taqra'u fi kulli rakcatin faatixata alkitaab wa suura, ragcad walba waxaa akhrinaysaa faatixa, ay suuradaa jeceshiid, faatixa, qul wallahu birabbi nnaas, ay suura akhrin kartaa. fa idaa faraqta min alqiraa, markaad dhammaysid faatixadii inaad akhrisatay iyo suuradiina akhrisatay, fi awali rakca, rakcada koowaad, wa anta qaam adigoo taagan, calaamadii ay soo gashay aan ka saaray, wa anta qaam adigoo taagan, qultu waxaad leedahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar 15 jeer. يعني فاتحة سورة آية أخرسة ما هذا الركوع وحاتري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شان توانجر وركوع ذي أذكرتي ركوع ذا أخرسة توانجر آيات لا يتادن كسوك عن ركوع ذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر توانجر آيات لا يتادن كذب وصوت توستي سمع الله لمن حمده تري انت آذن هذا السجود أسيدا دقين توانجر وحد لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسجودي أذكرت السجود آيات أخرسي انت آذن صوكعين هذا توانجر آيات لا يتادن مركت فريستي أو رب اغفر لي وارحمني أذكرت أخرسي انت آذن سجود كل لابن هذا توانجر آيات لا يتادن مركت السجود كل لابتين توانجر كلا آيات لا يتادن marka aad sujuud ka soo kacday wili sara aadan u istaagin hadana 10 jeer kale aad leedahay. intaas waa 75 jeer. rakac walbo 75 jeer ayaad akhrinaysaa uu kiri nabiga calayhi salaam. nabiga markuu ku yiri in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratan faf'al. hadii aad awoodid maalin walba inaad saa u dukatid samee. fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marra. hadaad awoodin maalin walba wiigi isbuuc walba hal mar saa samee. فإن لم تفعل هدي أتسمين ويدينا يعني أسبوعي ففي كل شهر مرة بشي هالمرة سمع. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة هدي أودس بشي جر هالجر إن تسميسد سنة كحتى هالمرة صلاة دكو. فإن لم تفعل ففي عمرك مرة هذا تسمين ويدينا نلش حتى هالجر كلية صلاة دكو صلاة الصبيحة لو مقعوا تاس يعني تي نبي عليه الصلاة والسلام وبري أذير كيسة عباس. حجة الإسلام أبي حامد الغزالي السجن يعني كل تجاربتي سبق صامري ويان أو كشك هنا وكل مرك كشك توبت كان تانكي حقيقة ذا فضاء إيش هذا كله كهذلي
wuxuu ku leeyahay haddii aad rabtid ilaahay dunuubtaada hore dhan inuu cafiyo oo qalbigaaga ka nadiifiyo ood u qalantid maxabadii ilaahay qabayso sida qofka qusl janaabo oo kale adigoo dhan mayro weyse qaado meel cidla ah cid bini aadan aan kula joogin imaw 4 rakac ku duko 4 rakac duko 4taas rakac markaad dukatid ilaahay u jeedso adigoo qalbigaaga xaadir ah gacmahaaga sare u qaad ilaahay u mahad celi alxamdulilah ilaahay ammaan wa thanaa lilah nabigaagana ku sali kadibna waxaad tirahdaa ilaahi cabduka alaabiq rajaca ilaa baabik cabduka alcaasi rajaca ila asulx cabduka almudnib ataaka bilcudur addoonkaagii kugu caasiyey kaa cararay albaabkaagu u soo laabtay cabduka alcaasi rajaca ila asulx kii kugu caasiyeyna wuxuu usoo laabtay inuu kula heshiiyo cabduka almudnib addoonkaagii dambiilaha ahaana ataaka bilcudur wuxuu kugu yimid dembi dhaaf inaad siisid facfu canii bijuudig ilaahu igu deeq dembi dhaafkaaga wataqabalnii bifadlik fadligaagana ilaahay darsi igu ogolaaw wandur ilaya biraxmatik ilaahu il naxariis la igu eeg allahuma akfir lii maa salafa min adunuub ilaahu wixii dembi hore aan ogolo dhan iga cafi wacsimnii fiima baqiya min alajal cumrigayga inta ka hartayna ilaahu i badbaadi fa ina alkhayra kullahu biyadig sababtoo khayrkao dhan awooddaada ku jira wa anta bina ra'uufu raxiim adigana waxaa tahay ilaahay dembi dhaafka badnaa naxariista badnaa allahuma yaa mujaliya cadaa'ima alumuur ilaahi dadka ka qaaday umuuraha waaweynaa yaa muntahaa himat lmahmuumiin ilaahi yani dadkii mahmuud yani murugsanaa murugtoodii meesha ku biishubanaysay yani inta bini aadan dunida ku nool oo murugsanoo dhan murugtooda yaa og aan ilaahay subxana watacaala aan ka ahayn ilahay keliya og yaa man idaa araada amran fa inamaa yaquulu lahu kun fayakuun ilaahay markuu amar doonana yiraahdo kun fayakuun wixii noqonayo axaatat biya dunuubun ilaahu dunuubteeda ayaa i hereereysaysay wa anta almadkhuuru laha adiga ayaana kuu dooray inaad iga cafisid yaa madkhuuran likulli shidda ilaahi loo dooranaya dhib walbo inuu dadka saaro kunta adakhiruka lihadihi saaca saacaddan ayaan ku keydsaday fatub calaya ilaahu dembigayga cafi inaka anta atawaab araxiim ilaahu waxaa tahay dembi dhaafka badnaa yaa man laa yashqaluhu shanun can shan ilaahi arrin kale ka mashquulinaynin walaa samcun can samc maqal kale yani ka mashquulinaynin dadka dhanna arrimahooda la socdo dadka dhanna maqlo yaa man laa tuqallituhu almasaa'il ilaahi su-aalaha badan khalad aan gelinaynin wa yaa man laa yubrimuhu ilxaaxu lmulxiin ilaahi aan yani dhibsanaynin calaacalka markii loo badsado cid walba meel walba ka ogaalaashaan dhibsanaynin adaqni barda cafwik ilaahu yani dhadhansii qabowgii macaan yani qabowgii dembi dhaafkaaga waxalaawata makfiratik iyo macaanka dembi dhaafka makfirada oo leedahay biraxmatika yaa arxam araaximiin naxariistaada darteed ilaahu taas igu samey innaka calaa kulli shayin qadiir ilah wax walba adiga waad awoodaa وصلى الله على سيدنا محمد نبي كذب كسلي كذبنا حتى هذا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات إله مؤمنين رج يدمربو إله إيجانا ذنوب تودعافي أنت سداد سمي سلكير وحلو رجينا قلبي جاوحي هر الله ضعفي لأنه كان نظيف سمي أدنى خطيخف أقل ما محبة إلهي عشرك أنت سينقصكوا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حياك الله شيخ aad baad u mahadsantahay runtii cashar aad iyo aad u qiimo badan ayaad nagu casuuntay oo nagu sharaftay alla jannooyinkiisa ha kugu sharfo wuxuu ahaa baraarujin ama toosin qalbiyada si toos ah u taabanaya waxaad si qoto dheer inoogu iftiimisay in jacaylka ilaahay aanu hayn in hadal keliya lagu sheegto balse ay tahay jid la maro una baahan dadaal iyo daacadnimo iyo cibaado iyo qalbi si dhab ah ugu xidhma rabbigiis
ilaahay kaa jisaayidsiiyo wax badan oon halkaa ka idhaahdo ma garanayo runtii hadal oo dhan ba adaa soo dhameeyey ilaahay qalbiyadeenana kama mariyo jacaylka ilaahay ilaahayna haynagu arsaaqo jacaylka runtii sida lagu gaadhaa way adag tahay laakiin ilaahay meel fudud haynoo soo dhigo insha allah qeybaha su-aalaha ayaynu gudageli doonaa waxaan ugu horreysiin doonaa qaasim kusoo dhawow haddaad wax tacliiqaada su-aalaha kasii horumarin kartana welcome walaal قاسم هدانا تشوقين عبد الشيء قاضي ما شاء الله خير العوسية أو آتي هذا ما سنتهي إسلام شيخ كشكي هذيك يو ولا شيء ذا أستاذ حرلي واحد آتي هذا رمشوت دينوس لما أنت جوبته وسي إن سلامة الحمد لله أكل وصلنا قدومي ما شاء الله سؤال خوف كبوري أو سؤال خبر لخذي إنك السؤال سؤالين كان كدونته بسم الله الرحمن الرحيم لما محمد مسلمين تمشي جوبت وحيد شيء يا أني خوف مسلم إن أحي سؤال عن قضاء شبهات معها أدو يا لقدين عبد الشاقي سبع شبهات صفور ما شيخنا هدو حكات ليسي نحريستي إلهي خير الأبسيو ما شاء الله ما نتركو وهرتم كده هاي وادو كل واحد خير الأبسيو حسنات الميزان كلا وكوسار ما شاء الله وحكى هذا الشيء سؤالا وحكى خبا أرنتي نحريست إلهي أصدقي سادحدي علماء أني تبليغا كميد أهاي وحكى خبنا إلهي سماء الدنيا إنه إيماناي تاس أديك محكى خبتا هلك سؤالا قبا كتب هذا كلام وحكى قرن إلهي إنه أصدقته مر بن آدم إسكالي وسيد هذا كتب هذه إسرائيليين تابع توريت إنجيل وحكى قرن markii buurta ay ku kulmeen nabi yacquub oo magac loo bedela israa'iil oo bixnay asi ilaahay inay kulmeen lagdameen oo dhulka imaaday waqtigaad sheegoos waaye nisfu leyl هذه لحظة وحي كدنبيو إلى إسديت إلى إسوحدي إلى وماذا لولكي أميسيين خار كميت عدد كان أم وهاب كشاك أم سوف كشاك وهذه مسألة سفوين بدني بحيان سؤال شيء ذا وحي ما نحريس لسا سماو الدنيا إماتو بس إلهي أهانتي ساس أصدقتو سيدات كتب ذلك الكوخر عن كل شيء إلهي لوك أصدقتو الكوخر مركو كسو عوو وانتاسان قواش بهارنا من إياها أرنتان دad badanka doodooyin oo culum sheegto way ugu soo laalaabatay maantan adaab had soo hadal qaaday ku soo insha Allah khayr ilaa ku sii waan mahadsantahay ku mahadsantahay wiilkayga Cabdishaaq su'aashan arintan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku saabsan daatadiisa waa arin horta yani ka muslimiin ahaan niqaash nooca ma soo gashay markii loo fiiriyo madaahibta muslimiinta caam ahaan iyo madhabta qolyahan Xanaabilada gaar ahaan ابن تيمية أرديديس ابن تيمية وقرني سديدات أرديديس إيجا دتكاس وحي قوان إلهي سبحانه وتعالى إنه جسمي هي إنه جري هي لبا إنه ليه هي لبا عن أمدك إنه ليه هي لنع إنه ليه هي وجه إنه ليه هي لوك إنه ليه هي فرع إنه ليه هي أو عرش جاس كدول فديه أو باص يوم القيامة النبي محمد أبانين دونه ولا فديسان دونه إلهاس بساس عن أكتر لبكم أها إنه أركان إنه صدقه oo soo daga samaa dunya kursi ku leeyahay meeshaas ilaahas dib uma arkaan in ilaahas inuu geed ku soo dagay oo nabi Muuse la hadlay soo imaamkooda ibn al-Qayyim kitaabka Shifaa al-Alil ku yiri wana sheegay maalinta qiyaamada intaan la gaarin dadka markay wada dhintaan dhulkaan uu soo dagi doona ilaahay taas waa timid iyaga u gaar laakiin muslimiinta kale oo dhan anaga dadkaan ugu horeeyo ku abtirsanaa madhabta imaam Abu al-Hasan al-Ash'ari waa ka soo horjeednaa taas مسلمين تكلمت نوع حيوان إلهي ليس كمثله شيء وحو أجمجره وحو والبو جسمي أهدي إله لجونس بيانا وحو لمد نخذي أو إكاد مخلوقات كيس وحيليهن مذاهبتنا أشاعرة يعني صفة النفس الذات إله السجان وحلوت الماما كلية إنه يهي جيرتانك مركب مليه هي قاب مايا مالو كبير هذا مليه مايا مالو كل ما هذا مليه مايا مال أو جان لو يقان مليه مايا مال أو كم خيها ماجرة هدو جرتان جر لهن أقدم جر لهن مركا الله واجب الوجود بذاته وين جرتان كسجا وصوابه إمام أبو الحسن الأشعري نحور جري الوجود هو عين الذات جرتان هو إله سبحانه وتعالى أنا جمرك صار درادت يعني آياتها أم أحاديث تكوي صفات أو موجينها
يعني sida bini'aadanimo oo kale ah ama waa ilaahay markaad tiraahdo carshiga ugu weyn ayuu yani ku fadhiyaa xataa carshiga maxaa dhinac walba ka daboolay jiritaan Soomaaliya ilaahay jiritaanka ka weyn markaas marka saa daraadeed sifaadkaas oo dhan yani culamaa al-ashaacira iyo madaahibta badan sida maturidiyada kulli waa ta'wiilina ta'wiil maxay tahay macnaha daahirkaas loolama jeeda waxaa laga wadaa saa daraadeed marka culamadii hore axaadiistan ku timid ilaahay samaa dunya u soo dagaa baabkay gelin jireen waxay gelin jireen baab fadaa'il qiyaam al-layl fadliga ay leedahay salaatu leylka ee caqiida ahaan waxaa soo geliyey salafiyiinta ama wahaabiyiinta caqiida ku soo daray caqiida ka dhigay laakiin kutubtii hore waxay ku jirtaa qiyaam al-laylka fadliga uu leeyahay oo qofku markuu arto habeenkiisa qaybta ugu dambaysa ilaahay naxariista soo dhawaanaysa ilaahay wuxuu leeyahay wax weydiinaya wuxuu xiisaynaa qofka salaatu leyl inuu dukado in waqtiga soo toosa ilaahay u baryo ilaahay u dhawaado laakiin yani daata ahaan ayuu u soo degayaa dadkaana markii dambe ma aragtay dhankaas ay ka soo gashay marka saa darteed ashaacirada waxay ku leeyihiin xadiiska isaga ismacnaynaya markuu yiri ilaahay yani wuu soo degaa maxaa ku xiga wuxuu leeyahay wax weydiinaya yaa dambi dhaaf weydiinaya marka arrintaas maxay cadaynaysaa naxariis soo dhawaatay cadaynaysaa maahina jir soo dhawaaday ma cadaynayo saas daraadeed marka aniga كعقيدة هان وحنا أشعري وحنا كمية هاي دتك أوجن جرى دنك التأويل كأولي بتفصيلي ساس درتت أنا قلب يقوم إن أو تأويليه أحاديث تاس أما آياتها نوع سكلاء تأويل وافقصا لغة عربية إلهي نكدو رايو بني آدم نمضى أكلا يعني نكدقنا إلهي سبحانه وتعالى عرش قاسوين ودول فضية هذا هو سيري سماء الدنيا يسود دقي سماء الدنيا هدو سود دقي حلقة يسود دقي ما حلقة أي كانت دكتها habeenka kala barkii qaybta ugu dambayso mise xilliga ay Soomaaliya ka tahay mise xilliga Australia ay ka tahay ilaa 24 hours adduunyada meel ay waxay ka tahay on yani xilli dambe oo habeen ah haddii marka xilligaas dambe habeenka aad dhulka samaa adduunya soo dejisay carshigiis goorma ku laabana 24 hours meel bay xilli dambe ka tahay yani ma macquul ma aha marka saa daraadeed yani taas waa macnaha wallahu a'lam jazakallahu khayr شكرا شيخ أدونا أدود ما تصنتهاي أستاذ عبد الشيقي قاسمو بدد شوكتو كسو أدونا سؤالها قبط شيخ ويديها دانت سؤال قبلنا welcome أوكي توحيد كسو حبيبتي بدد سؤال قبطو boosaskana waan u baahanahay cidiis ma garanaysaa boosaska banayn karta insha Allah dad fara badan baa halka hoose joogan doonayna soo qabto aniga bilaab ana beega awu ma santaa hayo ilaaku barakay ku faraxsanayna ay timid ilaahay ka ajrakaasi كشكيات بالما سنتش إلى كذا ما دعيلي سيدا قلبي ذا نوقف وجسي اللي بحلي دمانتي مع السلامة يا تدك سؤالها قبص وقبتها سؤالها من قبل حبيبتي جزاك الله خيرا شكرا حبيبتي أدبض ما تصنتهاي ورسمة سودو ولا له ودوي دمان أصحابنا سلامة يا شيخ كشكي نسجل وسلامة يا حياك أستاذ كشكي وسلامة أنا السؤال متى هل السؤال ما دام كهذا شيء نحرست إجعالك إلهي مرور بروحة أو هذا الشيء يعني سيدي دتك أو موقته نحرستاس أيك بحضر مرور بحالة بها دتك ودمنا المسلمين تأه قهر بدنا كجري دبتوين بدن إدغال بدن دتك ويسعونايان بدنا السؤال وحالة كنا سؤال ما دام هين دتك معركتي أو بدين في عن ومساجد بدن ولسنين حدنا دتك وفقرية دبتوين كده معنا هذا كويه موحنا فهمي ولي نسأله إنجنير ميدل مركا محل كل التحي دد كمسلمين تأه ما دام إلهي لحظة اللي معركة جعل وناد اللي أكلنا يهدد كده سوماليات ما دام دد دين تا وجعل نمو معركة تريو وآد دين تقول مساجدها ولسه صدقنا بحصنا حدنا عنفي نعاب إيه على الأركيسة حتى علماء لحظة كجرو hadda maanta waxaa arkay sheekh Somo oo dhahay dawladda wahaab waaye
xasan sheekh maxamuud wahaabiyada cabdiwahaab uu maaragtay uu ictiraafsan yahay waddanka madaxuna kusii socdaa arrimaha noocaas oo mar walba kaarka diinta la xoqonayo oo waddankeena ka socdo dhalinteena soomaaliyeed sidee looga badbaadin karaa mar walbo maaragtay nacaybkan faraha badan iyo firqooyinkan dad ilaahay jecel manihin miya dadka gaalada hadda aniga la noolaha marka aragtid waa dad isjecel dadka ka nabadgala soomaalida lagama karaa dadka kama nabadgalayaan marka maxaa dhibaatada anaga noo keenay inaan su-aashaasaan qabaa aniga mahadsantiin oo sanaada ustaad warsame waa ku mahadsantahay sayidii su-aashaas waxaa keenay waxaan aniga kusoo koobi karaa diinta yani waxay u kala baxdaa faham oo diinta xaqiiqadeeda la fahmay lagu camal falay iyo dhaqan oo la diimeeyey oo shakliyaadkii laga qaatay yani qoloftii kor laga qaatay nuxurkii jawharkiina laga tagay waayo diinteena islaamka saddexda waxyaabood ay la timid waa rumayntii ilaahay caqiidadii ahayd waa isla rumaysanahay cibaadadii hadday cibaadadaas toosnaan lahayd ilaahay ku dhoweyn lahayd yacni aragtida uu qaba max favor oo kale shaygu markaad usii dhowaatid wuu ku saameeyaa gacantaada markaad dabka u dhoweysid anigana gacanteeda aan u dhaweeyay barafka aan isku nimaano issalaano adigana waxaad leedahay gacantaada qabow waay anigana waxaan ku leeyahay gacantaada way kulushahay waayo ani gacanteeda maxaa kuleel u dareemay waa qabow aan ka imid qabowgaygaan ku siiyey adigana kuleelkaaga isiisay ilaahayna the more aad u dhowaatid haddaad si fiican ilahay ugu dhowaan lahaayeen sifaadka ilahay waxay ka xambaari lahaayeen sifadii naxariista waxay ka xambaari lahaayeen sifadii cadaaladda waxay ka xambaari lahaayeen sifadii dadka wax utaridda waxay ka xambaari lahaayeen sifadii asturidda waxay ka xambaari lahayen akhlaaqdii wanaagsaneed dhan waxay ka xambaari lahaayeen laakiin waxa way ilaahay looma dhowaanin sida sayidina cali bin abi talib alayhi salaam yiri masaajiduhum caamira masaajidda way camirayaan wa quluubuhum khariba laakiin quluubtooda kharaabay ka yihiin islaamkii marka shakliyaadkaasaa laga qaatay xagga cibaadadii yani xagga caqiidadii dhaqan ahaan ayaa loo qaatay oo ilaahay subxaana watacaala rumayntiisa yani jas ilah waa jiran baa lagu ekaaday laakiin aawma loo dhawaashadiisa iyo jeceelkiisa laiskuma mashquulinin cibaadadiina soo kale shakligii waan sameeyey kadibna dee ilaah iga aqbalo miyuusan aqbalin saameyn laakiin igu yeelatay ila sheekaysi ilahay aan la sheekaystay ilahay aan weheshada ma aysan ahayn meeshii marka waxaa ka dhimatay cibaadadii dhabteeda markay meesha dhimatay akhlaaqdiina way dhimatay akhlaaqda iyo tadayunka way isla socdaan Jean Paul Sartre wuxuu oran jiray haddiiba aan akhlaaq mabda'eedan aamino fursad waxaan siinay diin ilaah inuu jiro waa aragta yani ilaa hadda alxaadka casriga waxay la dagaalmaan mabda akhlaaq wax la yirahdo ma jiro kuwada hadda ugu dambeeya waxaa kamid ah Richard Dawkins uu yiraahdo akhlaaq wax la yirahdo ma jiro shar wax la yirahdo ma jiro khayr wax la yirahdana ma jiro ka horna waxaa ka horeyso kale Bertrand Russell weligood taas waay akhlaaqda iyo spirituality way isku xiran yihiin alladina yuqiimuuna salaata markii waxaa ku xiga akhlaaqa ku xigta way tuuna zakaa dadka wax u taraa salaadaas iyo cibaadadaas ilaahay kugu xiraysaday sax ahaan lahayd waxaa noqotay kain ilaahi ah ilaahay ku xiran oo cadaalada jecel wanaaga jecel dadkan wax loo tara jecel xumaanta nacab maadaama marka naga khaldan tahay caqiidadii dhabta ahayd oo caqiidadan ay tahay jale jas ilaahay anaga aan samaysanay oo naxariisba aan lahayn oo ma aragtay dadka lagu xuuxinayo salaad oo shakliyaad aan samaysanay garkii libaaskiina waan daysanay waxaan isku haysanaa tikidkeena jannada inaan wadano tiktok oo ku aragtaan dad caadi si buuxda u hadlaya aniga ahlu jannaan ahay hebel waa ahlu naar waa isoo ahlu janno inuu yahay marxaladaas dad joogo akhlaaqda laga filanayo marka maxay tahay dhankii caqliyaadka way ka dhinteen dhankii akhlaaqda way ka dhinteen sidaas daraadeed qolyo kaleeta haddii akhlaaqdii wanaagsaneed qaateen iyagaa ma aragta u qalmay inay nolol fiican ku noolaadaan الراحمون إلهي سو موسن دهن حديث كنبي أنا موسن دهن مسلمين تنحريص لكن الراحمون ألف إلا من الاستغراق والشمول عد والبون حريصته يرحمهم الرحمن إلهي نو حريصنايا عد والبون حريص لتماض إلهي نو حريصنايا مركا أنا جانب كاس مركا كدماني عقلياتكي عقيدتي الصحة أهيد عبادتي توسند أخلاقدينا وان كدماني ما هيسن أخلاق الإسلام أخلاق الإسلام كردن مركا في عالم كان إسلامي جنرال أهم وحن كسو كوبني قفت الدمر كلاواد لوك دحديد iyo يعني دورتيسا u dabooli lahayd bas يعني ما انت كشيكي يرى عالمka islaamiga iyo reer galbeedka waxay kala duwan yihiin markii waxay kala imaan dadka dumarkooda way qaawan yihiin zinada agtooda xalaal way u banaan tahay
بس dumarka labada lugood iyo labiskeeda bis ayaa akhlaaq anaga noo ah laakiin dadkan shaqada way noogu daacadsan yihiin waqtiga way ixtiraamaan nolosha way ixtiraamaan kii la nool yani way ixtiraamaan ammaanka way ila waxyaabahaasoo dhan lama qiimayna waxaa noogula saramaray akhlaaqdii wanaagsaneed ilaahina subxana watacaala marka ciddii ku saramartay akhlaaqdii wanaagsaneed ayuu ilaahayna kaalmo u noqday oo ku kaalmeeyey yani noloshii annagii marka shakliyaadkaasaan isku haysanaa magacyadanoo dhan wallahi wax saameyn ay yeelanayaan ma jirto magac waxaa kugu filan inaa muslim tahay ama suufi ahaw ama salafi ahaw ama ashcari ahaw ama yani maturidi ahaw ama shiici ahaw ama sunni ahaw waxaa muhiim ah saddexaas tiir inaad ka soo baxday ilaahaaga inaad ku xiran tahay ilaahad inaad aaminsan tahay ilaahas inaad jeceshahay cibaadadaas inay tahay cibaado adiga ilaahay si toosa u xiriiraysiin makhluuqaadkana akhlaaqdii ilaahayna amray inaad ugula dhaqmaysid automatically iyadaaba ku imaanaysa akhlaaqdaas marba haddaad kain ilaahi aad tahay ilaahay badaa ka og dhowaatay nebigana tusaale aad ka dhigatay silligiisa badsatay akhlaaqdii nebigana way ku saameynaysaa way kusoo gelaysaa ogolo ama diid iyadaa ku imaanaysa intii markii lagaa waayo shakliyaadkaas iyo magacyadan la sheeganayo wax ay noo taraayaan ilaahay agtiisa yowm alqiyaama ma jirto anaga waxaa noo taraya maxaan la nimid nuxurkii diinta aan la nimid maxay ahayd saddexdaas arrin aan sheegana diinta islaamka muslimiinta o dhan way wada xambaarsan way wada sheegtaan marka qaf waxaa arkaysaa salafi ah gar leh haddana yani wuxuu sameynaya ama dadka uu dhagraya khiyaanooyinka yani aan dhiiga isu u banaynaya qabiil ahaan xataa qaf waxaa arkaysa salafi ah oo caabida ilahay ka cabsanaya qaf suufi waxaa arkaysaa يعني متعبد عبادة سنة يخف صوفي كشاك أنا عبادة كجرين يعني وحيوها الله يابك الإسلام مروحة كما إذا لو تكون إيكوي طبانكي وحان آذكيني هوتيل أنا كنت دقي جراند ريفر ما محساسه كلا كويا الإسلي هوتيل كهوس وحشر كلها أهل السنة والجماعة صوفيين تاكو شرايان لأهل السنة أرمها الدولة وحاسة لك الشرايي بالعاق وحاب لايلو مدنينين نين مركز صاحبنا يسود ويبري kuwa ka mid ah maamulayaashooda ahlu sunna wal jamaa receptionka hor albaabkuna isku baranayna isaga qamiis waxa uu jira cad garu leeyahay koofiyadii reer baraaha ayuu maaragtay u saaran shaal cagaaran oo wata mala qadriyo sheeganaya ee tusbixi weynaayo madooba ay wata ma sha Allah si fiican isku salaamay ilaahay qudradiis maalintii aroortii salaad sax markaan dukada masaajidka hotel ku yaala ku wardii duxa aan dukada waxa rejiimka iska aad xogaa exercise samay jiimka marka aan soo galay ninkiya meesha ku jira saaxiibkiisa u sheekeynaya exercise-kii sameynaya markaas ma fahmin isagii ninka shalay aan isbaranay oo ka mid ahaa ahlusunna wal jamaa hogaamiyahooda oo saa u labisnaa stuuta wata markaas wuxuu ugu sheekeynaya wallahi xalay khafta oo la seexday kastuumadeeda caday ahayd sidaanan u rogay kana jiimkayga waa dhammaystiran waa ka soo tagay wallahi waa ugu soo tagay xalay oo dhan macsiyo ku jira izina maalintii khamiiskii wuxuu wataa shaalki waliya ahlu sunna wal jamaa ahay wahabiyan la dagaalamana lacag rabna inaan ku qaadano noocaas oo kale marka diinta ay sheeganay maxayeen kuwaasna waa naga buuxaan culimo sheeganayaan wallahu a'lam عجيب سبحان الله يعني شيخ halkan ana wax kaga sii yara darsaday quraanka kariimka 1500 oo aayadood ayaa akhlaaq ka hadlaysa waxyaabihii nabigeena lagu amaanayna waxa ka mid ahayd akhlaaqda wanaagsan innaka la ala khuluqin cadiim ilaa quraankiisa ma garanaysaa ay ku lahaa waxaad arkaysaa wasalimka sheegaysid qof aan akhlaaq lahayn haddana la diiban difaacaya qofkii kala caynaya haddana kula waxbaan ma garanaysaa diin baan ka turjumaya dhaqanka diintaba kaama muuqda maxaad horta diin uga turjumaysaa يعني واحد كان كمرن قيبت أخلاقيات كلامه صار بالصو هذا الدين تينا بقول كي بشن يسقاشن أخلاق بكل بسنتها ويديم دتك كلام حنو كجد وين هالدين تينا أي كجد وين هو أخلاق مركز كتر شو ميسيد يعني إن دين هذا إسلام كأد متشوى إن مركز أخلاق هذا لقد هذا وإن عرب كاجي الدين كاجي عندها قبل لقينا بدي هذه كريا وأنا عندها سكر ولدتك وجوبين أنا ذو إيجن وإن عرب كأنا مقرن سايدتك كوحن وتشنون أريدتك مقرن ساي قلبي وقديبا يعاند كو أورانين وإن قعنت هذا لنا لقينا بدي كرا لكن قف كلها الكل شوكتا وأن كديريا
ma garanaysaayey maxay baa tahay ku caayaya haddana at the same time kula diin baan difaacaya cajiib marka yani akhlaaqadu waa shay aad u muhiima in ma garanaysaa halkaa ay dadku aad ugu baraarugsanaadaanna waa muhiim waxyaabaha iminka aad looga sii siibtana waxaa ka mid a yani khuluqii wanaagsanaa in ma garanaysaa laga sii tagayo ilaahay baan ka magan galnay inuu ma garanaysaa akhlaaqadu ay naga xumaato marka waxaan ku xigsiinayaa ustaad waay waantu haddaad joogta ku soco adaa ku xigeen dhammaan waan salaamay sheekh cabdiqaadir kishkina si gaar baan u salaamay xayaaka allah ustaadi حياك الله حبيبي وسيدي mashkuur ustaadi maanta waxaan qabaa laba su-aalood oo badana ah labada su-aaloode aad u soo darxiyeen qolyaha malaaxidada sayniskana waxay la leedahay ma garanaysaaye sal waxaa ka mid ah su-aasha koowaad haddaan ku bilaabo waxa weeyaan halka laga fakero iminka markaad eegto aayad qur-aanaa jirto ilaahay leeyahay maxay ahayd fainaa laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub allati fi suduur oo ilaahay oo ka dhigayo inuu magaranaysaa qofkuu ka fakeri karayo wadnaha badanana malaaxidada waxay yidhaahdaan sayniskuna wuxuu caddaynaya maskaxda in laga fakero wadnuhu keliya yahay meel pressure karayso amba bambar karayso maxay ahayd dhiigga si uu maskaxda u gaaro oo jirka kale ugu faafo su-aasha koowaad waa taa halkee baa laga fekeraa markii qur-aanka la eego ma maskaxda mise wadnaha su-aasha koowaad waa taa su-aasha labaad waxa weeyaan aayad waxaa jirto ilaahay leeyahay ma garanaysaaye afalam yanduru linsaanu mimaa qor insaanku yuusan eegin waxa laga abuuray khulaqa mima intaasaq waxa laga abuuray biyo boodayo kaasoo yakhruju kasoo baxayo min bayna sulbi wataraa'ib kalxamaa iyo lafdhabarta inta u dhexayso markaas waxay ku andacoodaan saynisku wuxuu caddaynayaa isbaamka mise biyaha ragka inay ka yimaadaan dhanka iyo xiliyaha aayadan qur-aankan waxay ku leedahay kalxamaa iyo lafdhabarta inta u dhexaysa ka timaadaa so aayadda iyo sayniska iyadana see wada isku qalsiini karayaan labada su-aalood way istaaday جزاك الله خيرا حبيبنا horta arinta ku saabsan meesha laga fikiro ma qalbiga ma maskaxda yani hore waxay ahayd niqaash oo yani culamadii hore uga niqaash jiray gaar ahaan qolyaha muctasilada iyaga yani waxay u badnaayeen inay tahay tafkiirka inuu yahay dimaaq maskaxda ay ku leeyihiin haddana aayadahan oo kale tacmal quluub allati fi suduur yani sadr waxaa noqon kartaa laabtan waa lagu magacaabaa sadru ra'sina waxay noqon kartaa yani upfrontigan ama frontal lobka biniaadamka madaxa uu leeyahay marka kulli waxay ku biishawanayaan oran jireen yani maskaxda laakiin cumuum ahaan aayadaha diiniga oo yani iyo culumta sayniska meelaha isku khilaafaan ma jira daahir ahaan tabcan way jiraan waayo qur-aanka markuu hadlayo wuxuu ku hadlaya dadka say wax u arkaan ee xaqiiqada arinta saas uma sheego waa xaqiiqada haddii loo sheego dad qur-aanka uu kusoo degay ay yihiin dad oo mathalan yani badawiyiin ah oo noloshoodana bidaa'iye ay tahay yani waxyaabo iyaga say u arkaan mooyaane ka duwan haddii loo sheego qur-aanka way beeninayaan laakiin qur-aanka waa ma aragtay yani xamaalun yani macno badan oo xambaari kara soo cali ibn abi talib alayhi salaam uu yiri macno waxaa laga yaabaa casrigooda munaasib ku ahaa casri kalena oo munaasib ku ahaan oo loo baahan yahay macno xaqiiqi kale loo xambaari karo inuu yeelan karo aayadahaas oo kale marka tan oo kale ka mid ah arinta gacan ku saabsan qalbiga arinta waxaa ka mid ah hadda aad sheegaysa yakhruju bayna sulbi wataraa'ib iyaga fahamkooda meeshuu ahaa ayaa maaragta dadka lagula hadlaya dhulkaas oo kale yani inuu maaragta dadka waxaa aayad badan waxaa arkaysaa dhulka inuu fidsan yahay oo kale ilahay inuu ku tilmaamayo samaawaadkiisa laakiin cilmigiina wixii ma aragtay yani uu diidayo oo arkay dhulkii inay tahay kurawiya haddana aayad kalees oo kale yukawiru leyla cala nahaar meeshaas dan istinbaad kale culamadu waxay kasoo saaranayaan marka sidaa daraaddeed haddii la yiraahdo mar walba aragti saynis ah iyo qur-aanka waa inuu iswaafaqaa haddii kale qur-aanka wuu qaldan yahay aragtidaasna berito aragti kaleeto kasii badanaa soo bixi karta ama kasii daran ama aragti kaleeto oo sii cadaynayso tii qur-aanka ay sheegay inay sax tahay waayo cilmigan lifsirkiisa xaqaa'iqda ma uusan taaban mana taaban doono suu yiri xataa Stephen Hawking yani xaqaa'iqda umuurta ma gaari karo laakiin mar walba xilligiisa si wax ugu muuqdaa cilmiga si wax u arkaa taas ayuu wax ku xukminaya tii haddii marka mid walba oo la yirahdo waxaa lagu miisaamayaa qur-aanka ama qaybiyaadka طبعا markii sheekada diinba way ka baxaysaa waxay noqonaysaa mujarrad aqliyaad iyo saynis iskugu yimid diinta inay tahay diintana ma aha saynis inay ka hadashay xataa
filosoofkii haddana baadariga ahaa Santa Augustine wuxuu oran jiray Bible-ka wuxuu ku gaarsiiyaa samada, yani iyaga jannada waxay aaminsan samada inay tahay, laakiin kuma sheegayo samada say u samaysan tahay xidigaheeda iyo waxyaabahaas. يعني ساينسكا iyo marka culumta meel qaar way iska waafaqaan, meel qaar way iska yimaadaan, meel qaar hore isaga hor imaan jireen hadda way iska waafaqeen, meel qaar laga yaabo inay gadaal ka soo baxaan iska waafaqaan. fa Allahu a'lam هذه الامور يعني جزاك الله خير. شكرا شيخ aad baad mahadsantahay. inaan kaa jarmaada ugu qoran tahay baa ku xiga filayaa. welcome walaal dad joogto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على الهنباح يو شيخي الشيخ عبد القادر كشك. أيادكم السلام يا. عليكم السلام أبوان كينا بركيسن يور أبوانا. شيخ وفي عنا هذه الضوء حسيته. هذا في عنا الحمد لله الحمد لله. وما سنت الشيخ وحنك بقى عن سؤال أو أنك القرآن ككلمة نساء طبعا عقيدتنا وقادم القرآن كانوا ينط المام يعني عن رعنا إن بدن ويعني من الذي نبي الله إبراهيم waxaana ayadahaas ku soo noqotay maradu nabi ibraahim ilaahay ku tilmaamay xaniifan musliman mashaayikh ma macna xaniif muxuu yahay qofka sifada xaniifka qaadanaya aaminaadiisa iyo dhaqankiisuba yani taban aqeedahan maxay tahay waa halkaas su'aal baan qabaa aad iyo aad u maasantay waxaan rajaynayaa sheekh inaad fahamtay ujeedkayga اسمع ku fahma akhi arta nabi ibraahim alayhi salam طبعا quraanka saan sheegnay mar walba wuxuu la hadlaa dadka markaas nool si ay wax u fahmi karaan imeesha wax ka fahmi karaan. nabiga alayhi salaam Makka iyo Madiina iyo meelaha si fiican loogu yaqaanay nabi ibraahim alayhi salaam oo iyaga xataa waxay isku haysteen mushrikiinta iyagoo shirkiga ku jira haddana nabi ibraahim alayhi salaam inay haystaan. oo waxaan ognahay kacbadii xataa inay dhajiyeen sawirkii nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil, yani sawiraas inay dhajiyeen nabiga dhahay halaga masaxo sawiradan oo dhan markii fatxu Makka ay dhaceen. marka magacaas nabi ibraahim agtooda wax kama dhalanaynin, laakiin ilaahay mar wuxuu cadeynayay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam inuu wato miladii ibraahimtii sax ahayd ee la taxriifiyay oo taxriifkii laga nadiifiyay laga dhigay iyadoo barax oo saafi ah. oo nabi maxamed ma kuntu bid'an min ar-rusul rususha bid'a lama kama ahayn. way anbiyo kale waxa jirta ilaa quraanku noogu sheegin laga yaabo hindi anbiyaal inay ka jiraan, China anbiyaal inay ka jiraan, meelo badan oo anaga yani la gaarin waqtigaas anbiyaal way ka jiraan, laakiin anbiyadan loogu sheekeynaa waa kuwii kaliya joogay Middle East. koo haddana kuwa ugu sii caansanaa oo nabi ibraahim wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu caansanaa. yahuudi way sheeganaysay, nasaaradii way sheeganaysay, muslimiintii way sheeganayeen. marka nabi yani ilaahay quraanka meelo badan oo ku sheegay watabac millata ibraahim xaniifa. nabi ibraahim marka wuxuu mid ka leexday shirkiyaadkan asnaamtan la caabudayo aalihadan kale la samaystay maal yani shay yani tii an xanafiyat الsamxa tii ka leexatay waxyaabahaas oo dhan weeyaan. xanaf waxa lagu shayga leexdo marka saa daraadeed yani wuu ka leexday asnaamtaas iyo waxyaabahan ay caabudi jireen, ilaahay kaliya ayuu maaragtay وجهيست إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. متكلم حذي أصنامتي أي عبودة عندك يجي أو مسلم إله اسكت لي وهو جالس مسلم مع استسلام وهو جالس أنا شوية إله اسكت لي وما عن المشركين أنا كمان إيه مرك ساد راد النبي كان عليه السلام آيات القرآن كسود دقيقة عدينا إنه هايستو من الذي تبعت ملة إبراهيم حنيفا يعني waxaan qaatay wadadii miladii ibraahim ka leexatay shirkiyaadkii. yani shirkiyaadkan asnaaftan daabudaysaan ha u nisbaynina diinta ibraahim sax ah waa taa aniga hadda ilaahay ii waxyooda aan qaatay oo ah ka leexasha asnaaftan oo dhan oo halkaas ilaah kaliya in lagu xirnaado la caabudo loo go'o la jeclaado. oo takhada allah ibraahim khaliila ilaahay kira quraanka yiraahdo ilaahay ibraahim wuxuu ka dhigtay saaxiibkiis. yani ilaahay ibraahim jecel nabi ibraahim jecel ayaa ka dhaxeeyay isku dhawaasho ayaa ka dhaxeysay. nabi ibraahim ilaahay ayuu weheshanayay, ilaahayna wehel ayuu ahaa nabi ibraahim alayhi salaam. wallahu aad baad u mahadsantahay sheekh. sidoo kale wiilkaa jarmaadana aad baad u mahadsantahay. waxaa ku xigay inaan kaa igu qoran tahay ama gabadha ayran oo qofka akoon kasta khayr doon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام دمان بخير. الشيخ واحد من السؤال شيء كوسا سنيت صلاة الدنيا دافع لودو كذا. أفرتك عما سيدوك وقال أفرتك عايز وحنا لدوكليا مثل الله. غالب وياي كتا أما أفرتك على دوكلا
haddii afarta la isku darayo ma ataxiyaad dhaxana way la socotaa taasna ina ogaado صح وين ها أفرت واسكت دري كرتا تحيات دحدا وراسين كرتا أما ستير كلا دور كلا أما سنوين كسيد الله سماه لبا لبا أدوكين كرتا وسلام أحسن كرتا هذا لبا كلا دون كرتا لبا سيبوا سماه كرتا جزاك الله خير ما سنتي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم ضمانه waxaa ku xiga fardiya inantaa ugu qoran tahay fardiye xasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا ولا سلامة ولا له نمان شيخنا ولا سلامة يا ولا شيء. سؤال عن قبو شيخه وحويان وأخذ سبك وحالي يري مركو قدام بيسا انتاس أو فتقو بدك وكلا بحيان فتقو والبناء يلا أتوسع أحسن هل فتقة كليا أنا ما عرفت كسحسن أنت كلا وحوي وحي كجيران غلط واي وحتى قرآن سفي عن وما عرفت وآخرنا يقوى كاسلات بدن قوة أنا إسكول ذي مركب فتقة راس وقص أحسن ما دام أنا ودمانتين قف والبق وما عرفت وعذاب كعرض عيو ما عرفت وجنان الرو ووح قف والبق وصمايا حتى كان قاعد وحي صمايا ها في رقوين كودا ما فهمت marka sidee lagu ogaan karaa tee sax ah maadaama qof kasta isaga isla saxsan yahay dhammaanteena aan dad muslimiina wada nahay su-aasheeda kale labaadna waxaa weeyaan hadda xarabka ka imid xajkaa ka imid ilaahayga aqbalo dhammaantiina maaragtay allah inuu siiyo waxaan kusoo arkay